السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada idinku talagalnay maanta oo Isniina waa barnaamijkeennii ugu horeeyay waa barnaamijka subaxnimo waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn waxaa ka mid ah khasaaraha ay geysteen weerarkii gantaalaha Iiraan xalay ay ku qaaday Israa'iil oo la sheegay inay sii kordheen waxaa soo kale la sheegayaa in Iiraaniyiintu ay qabteen qolyo u shaqaynayay Israa'iil oo gudaha Iiraan ka tuurayay drones dilay in badan oo ka mid ah saraakiishii ciidanka Iiraan saldhigii iyo goobtii ay halkaa ku diyaariyeen ayaa la qabtay kadib Israa'iil aflabadii ayay qaylisay waxay kaalmo weydiisanaysaa Ingiriiska iyo Faransiiska oo waxay leedahay naga soo gaara Iiraan kumanaan sawaariikh kale ayay haysataa wayna nagu soo ridi doontaa Mareykanka oo sidoo kale soo wada markab ku sugnaa xeebaha badda la yiraahdo Bahru Siin ama badda Shiinaha ayuu hadda u soo wareejiyay oo uu markaa u soo diray bariga dhexe si Israa'iil loo difaaco haddaba maxay tahay Israa'iil waxa ay ka baqanayso oo Ingiriiska Faransiiska iyo Mareykankuba ay markaa u difaacayaan haddaba xaaladda ayaa sii kululaanaysa haddaba waxaa la isweydiinayaa Iiraan iyadu halkee gurmad ka heli kartaa Israa'iil waa tan qayla dhaasanaysa oo leh hal laga soo gaaro hal lay difaaco oo Ingiriiskii iyo Faransiiskii iyo Mareykankii kulli ay Israa'iil difaacayaan Iiraan hagee gurmad ka heli kartaa khubaradu wixii ay ka yiraahdeen arrinkaas iyana waan idin faahfaahin doonaa qodobada xiisaha leh ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Isniina barnaamijyada aan idiin soo gudbin doono haddii Allah uu dili ka raali noqdo haddaba barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Iiraan halka la kala marayo iyo xaaladdu sida ay tahay haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay Iiraan ay ku garaacday gantaalaha Israa'iil ayaa la sheegay inuu sii kordhay Al-Jazeera waxay leedahay 8 ayaa dhimatay 287 kalena way ku dhaawacmeen oo Israa'iiliyiina kadib markii xalay la garaacay Tel Aviv iyo Haifa oo Israa'iil markaa ka tirsan warkaasu xalay ayuu daba socdaa macnaha xalay wixii dhacay 15 dhaawacantay kana asaan ahaay waxaas la lahaa hadda 287 iyaga sheeganay dhaawaca marka 8 dhimasho iyaga sheeganay laakiin warkaasu faraqayaashu kuma socdo waxay leeyihiin mar walba Israa'iil ay wax yarayso wax waa ka badan yihiin marka burburka xalay ka dhacay meesha iyo sida guryuhu u burbureen oo saaki la soo sawiray markii maartay la arkay waxa leeyahay sheekadu armay inta ka badan tahay nimankan inkastoo ay inta sheeganayaan waa sii soconaynaa warar kala duwan baan idin hayaa saaki haddaba warbixin kale oo goordhow iyana Al-Jazeera qortay waxa leeyahay wakaaladda wararka ee la yiraahdo Tasniim markaa laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa waxay sheegtay in weerarada ku xiga ee Israa'iil lagu garaaci doono ay noqon doonaan kuwa aad u culus oo la isticmaali doono sawaariikhda codkooda ka dheereeya ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay adeegsadeen weerarkii Haifa iyo Tel Aviv xalay tiro ka mid ah gantaalaha codkooda ka dheereeya kuwaasoo la sheegay inaan hore loo isticmaalin hase ahaatee hadda xarisul ciidanka la yiraahdo ilaalada kacaanka Iiraan hadda waxay sheegayaan inay adeegsanayaan gantaalahaas oo markaa ay u isticmaali doonaan weerarada soo socda oo ay ku qaadi doonaan Iiraan gantaaladaas khatarta ah oo xalay burburiyay in badan oo ka mid ah inay markaa ku weerari doonaan way mujeda warku isku xigxigaan marka hore kii xalay khasaarihiisii aan ka baxnay
hadda waxaa loo tafaxaydanaa midka ku xiga xaarisul thawra ciidanka alxaaris athawriya layidhahdaa ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay leeyihiin xalay kii aan habeenadii hore isticmaalnay ma ahayn, xalay waa ka duwanaa midkaan isticmaalnay. mid waxaan isticmaalnay codkiisa 9 mar ka dheereeyay, kaasaa xalay xayfa iyo talaabiib holciyey. kii oo dhowr xabo ah oo intii ka badan ayaanu u adeegsan doonaa yidhaahdeen weerarka kan xiga. marka inaa iska qabataan waaye, alaabtaasaa soo socotaa la leeyahay. haddaba marka su-aal, israa'iil ma aaminsan tahay iiraan inay gantaalo fara badan haysato mise ma aaminsana? waa la weydiiyey. ninka amniga qaranka guddoomiyaha u ah ayaa waxaa la yidhi waxaan ay sheegayaan nimankan ay nagu soo wadaan inta yareedoo na soo gaartaa saa noo burburisay, nimanku wax ma haystaanaa layidhi. markaasuu wuxuu leeyahay ninkan marka jariirada la yidhaahdo asharqul awsad ayaa wuxuu leeyahay la taliyaha amniga qaranka ee israa'iil ayaa wuxuu sheegay in iiraan ay weli haysato kumanaan sawaariikhda balastiga ah oo ay awoodi karto inay burburiso israa'iil oo dhan. haddaba la taliyaha amniga qaranka israa'iil ninka la yidhaahdo tasaaxi hangabi ayaa sheegay maantoo isniina in iiraan weli ay haysato kumanaan sawaariikh oo nooca balastiga ah, kuwaasoo sheegay inay khatar weyn ku yihiin israa'iil haddaana laka soo gaarin. intii yareedoo 100 aan dhammayna saas noo gashay, kumanaanay haystaanuu yidhi, kumanaan. marka ma iska celi karno nimankan, habarteeda ka toori. niman aan u babac dhigi karno gantaalahooda ma ah, laakiin annagu midaan hawadaa uga fiicannahay, diyaaradaa ku duqaynaynaa, kan waxaasaa samaynaynaa, laakiin gantaalahooda ma celi karno. marka maxaa dhacay? marka saacadihii lasoo dhaafay maxaa dhacay? warbaahintii israa'iila waxay leedahay israa'iil way qaylisay, war naga soo gaaray ingiriisow, faransiisow, maraykanow, waxa meesha ku yaallo oo aad difaaca uga jirto wax tari mayaane wax kala keen. markaasaa wixii gaaloo dhanaa isugu timid hadda inay difaacaan israa'iilay rabaan. marka sheekadaasu sheeko caadiya waaye. hadda aan idin tuso marka wakaalada wararka ee layidhaahdo anadol waxay leedahay warbaahinta israa'iil waxay ka hadlayaan israa'iil inay ka dalbatay gargaar degdeg ah faransiiska iyo britain, waxaana ay sheegtay si ay uga hortagaan gantaalaha iyo weerarada iiraan. laakiin waxaa la leeyahay jawaabtaasi markiiba waxaa fuliyey ingiriiska oo diyaar u ah inuu ka hortago gantaalaha kale ee lagu soo weerari doono israa'iil, halka faransiisku uunusan weli soo gaarin, isaguna uu ku soo socdo. faransiiska xoogaa yaruu caaga jiidaya, laakiin waa baanaya wixii gaala ahaa oo dhan halkaasay isugu tegi doonaan. israa'iil marka waa qaylis. iclaam cibriga la yidhahdaa waxawaaye warbaahintoodii afkaysaa saasay u qaylina. waxay leeyihin hay-adda wararka u faafisa israa'iil aqoraysa oo wakaalada wararka anadol ka soo xiganaysa waxay leedahay war inaga soo gaara. waxaa aragteen ma loo adkaysan karaa? waa aragteen meesha hal xaba markuu soo dhaco xaafadan u gubaya. waxaad moodaa in nuclear ku dhacay. alaabtii gaza oo kale ayay noqotay, magaalooyin dhanaa saas noqday israa'iil. talaabiib kubra meesha la leeyahay oo dadka hantida leh oo sida wanaagsan u qadeeya iyo nimanka madaxda ay degan yihiin aaway waa ku day, saxaafado dhanaa ku daay, wax holcaayo oo yaabaysaa. marka nimanku waxay leeyihiin hana laka soo gaaro. nimankan marka yaa difaacaya. marka gantaalaha kale waa la isugu tegi doonaa, ma celin doonaan, waa hawl kale waaye. haddaba marka ma ingiriis iyo faransiis iyo keliya celinaya? maraykan soo awal ma joogin, wax ma celinayn, waxba ma celin weyno. hadda maraykan maraakiibtiisi midkii ugu qatarsanaa oo chineska uu ku difaacay, u fiirsada, chineska midkii lagu celcelinayay oo baxru siin meesha la yidhaha badda shiinaha ku sugnaa ayaa amar la siiyey, wuxuu u soo jihaystay bariga dhexe. haddaba aan idin tuso mar kale jariirada la yidhaahdo sharqul awsad waxay leedahay markabka diyaaradaha xambaara ee maraykanka ayaa wuxuu sheegay in markaa ay
ka soo tageen dhankaa iyo badda Shiinaha ee koonfurta waxayna u soo jihaysteen dhankaa iyo bariga dhexe ayay soo aadeen degdeg u tagaaliir meesha Israa'iil waa baaba'aysaa haddaynan ka gaarin gantaalihii hore aan ugu dirnay waxaan waaba iska soo jeexayaan kuwan Iiraaniyiinta Iiraaniyiinta waxaan waa iska soo dardarayaan marka waa in nimanka laga gaarsiiyaa oo maaragtay la badbaadiyaa waaye markay halkaas marayso General Hatim al-Fallah waa ninka falanqeeyaasha ugu badan hadda sameeya ee militariga generaalka oo Al Jazeera aad u waraysato waxa la yiri meeshan waxa ka muuqata in Iiraan la difaacayo ee baalkii Israa'iil la difaacayo waxa difaacaya Ingiriis Faransiis Mareykan oo hore u difaacaya haddana markab kale soo wada xaasoo dhan way difaacayaan ee waxa la yiri nimankii Iiraan ahaa iyaga yaa u maqan oo difaacaya dawladihii aaway difaaci lahaa marka ninka hadal fiican u sheegay wuxuu yiri Iiraan Gaza ma ahan u fiirsadaya hadalkiisa hadal muhiim u sheegay Gaza oo go'doonsan ma ahan u yiri Iiraan waa wadan weyn waa wadan xadaarad leh waa dawladnimo soo jira weyn xuduudo fara badan leh haye wuxuu yiri dhawaan ma ogeydeen Pakistan inay tiri waa idin kaalmaynaynaa Pakistan iyo Iiraan xuduuday leeyihiin halkaas waxyaabo badan ee ciidanka ilaalada kacaanka ay soo marsiisan karaan waxa kaloo halkaa u soo mari kara wax kasta oo halkaa maaragtay Iiraan looga soo gelin karo meel kasta looga soo gelin karaa meelo badan ayay Iiraan maaragtay xuduudo ku leedahay oo wax badan looga soo dusin karaa oo hawlo badan marka waxa leeyahay laftirkoodu inkastoo maaragtay dawladahu aysan ku dhicin sida kuwan oo kale waa difaacayna Israa'iil kuwa sida oo kale Iiraan waa u difaacayna dhahay oo gantaala keensanaya oo diyaaradaha Israa'iil la dagaalaya lama heli karo dawladii islaamku de halka waa ku baabaasan yihiin awlee marka wuxuu leeyahay waa arki doonaa inkastoo hadda la leeyahay way soo xoogaysanayaan difaaca cirka Iiraan inkastoo markii hore aad loo burburiyay laakiin qaybo badan oo kamid ah oo deegaano kala duwan ku sugnaa ayaa hadda aad u dagaalamaya Israa'iil wali awood badan uma laha inay meelo badan siday taa u burburiso inkastoo laftirkoodu ay garaacayso Iiraan la garaacayo oo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waa la garaacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga waa la garaacay meelo badan la garaacay laakiin waxa leeyahay xaalku wali waa tuuran tahay oo maaragtay meeshaas ay hadda xaaladdu maraysaa waayahay marka waxa noo soo socda sheeko kale Iiraan maxaa dilay madaxdeedii culumadii maaragtay dhinaca sayniska oo nuclearka ka shaqeynaysay iyo saraakiishii inta badan yaa dilay inta badan drone gudaha laga tuuray Israa'iilna way sheegtay waxay tiri saldhigan gudaha ka sameeynay drone aan ku xareynay drone kaasaba shaqo badan qabtay oo xataa difaaci cirka meel u dhow laga tuuraya kaas gubay Iiraan marka waxay raadinaysay droomadan gudaha laga soo tuuray saldhigoodii way qabatay Iiraan marka ay qaylinayso Israa'iil waa markaas haddaba sheekadaas waa galaynaa laakiin xayisiinta kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Isniina waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka qaybtan ugu dambaysa waxa la raadinayay maalmahan sirdoonka booliiska wax walba ciidamada gaarka ah daroonkan gudaha laga soo tuurayo ee dadka ka laayay Iiraan gudaheeda laga tuurayaa daroonka magaalada Tahraan meel u dhow wala ku soo baxaya xagee marka difaacaysa waxa difaaci kartid male say u raadinayeen dadkii waxa la yiri soo sheega meesha wax yar ka shakisaan noo soo gudbiya warbixintii loo keenay ciidankiisay u socdeen ayay waxay dul tageen guri ay daroonkii Israa'iil ay keentay dhooban tahay walxii qarxa lagu xiri lahaa dhooban yihiin ragii qaar la qabtay qaarna waa lagu daba joogaa nimankiina baaritaan ku socda inay Iiraaniyiin yihiin iyo inay Israa'iiliyiin yihiin wali Iiraan tuma sheegin laakiin nimankii
waa la qabtay saldhigii waa lala wareegay markaasaa nafis ugu horreysay waxay leeyihiin nimankii horta ma qaban weliba waxaan raadinaynaa dhee meelo kale hal meel kaliya maaha nimankana lagu raadinaa hal mar marka haddii meel la qabto oo qolo la qabto qolada kale iyagaa is sheegaya marka waxay leeyihiin hawshaasu markii ay dhacday waa midda Israa'iil ay u qeylinayso leedo naga soo gaara xaalkii waa nala ku fahmay sheekadii waa xumaatay haddaba marka aan idin tuso wakaalada wararka ee Anadolu ayaa qortay goor dhaweyd warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in booliisku ay qabteen koox taageersan hay-adda sirdoonka Israa'iil ee la yiraahdo Mossad waxaana lagu qabtay deegaan dhaca koonfurta magaalada Tahraan haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay booliisku waxay qabteen kooxdaasi oo markaas sirdoonka Israa'iil la shaqeynaysay Mossad magaalada lagu qabtay waxaa la yiraahdaa magaalada Rey waxay ku taalaa koonfurta caasimadda Tahraan waxaa laga helay meeshii lagu qabtay oo markaa walxaha qarxa oo laga sameynayay diyaaradaha daroonka iyo kuwa samaysan oo dhiman in la isku rakibo wakaalada wararka Iiraan ee la yiraahdo Mahr ayaa waxay sheegtay in markaa la soo qabtay rag sarsare sida uu yiri taliyaha booliiska in markaa raggaasu hadda ay gacanta ugu jiraan ciidamada ammaanka Iiraan waxaana uu sheegay in qaar ka mida diyaaradahaas iyo meesha wixii yaalay qaraxyadii dib xataa baaritaan loogu sameynayo meesha rasmiga ay ka yimaadeen iyo cidda keentay in Israa'iil ay tahay iyo in dawlado kale ay keeneen baaritaankaas ayaa socda marka waxyaabo badan oo la isweydiinaya jira Iiraan waxa kan gudaheeda laga soo tuurayo oo nafta u keenay oo dadkii ka laayay sidee u qaban weys hadda marka raadkii la helay marka waxay leeyihiin khubaradu waxay leeyihiin mar haddii khaliya waxa la yiraahdaa koox la qabtay diyaaradihii la qabtay raad badan la heli doonaa diyaaradahaasu nooca ay yihiin horta yaa sameeyay xagee ka yimaadeen walxaha qarxa xagee ka yimaadeen waa la yaqaanaa adduunka nin u dhuuma kara male ma dawlado kale oo Israa'iil ahayna meesha soo geliyay sidee wax u jira waxa soo dhan baa la baarayaa ragga la qabtay maxay yihiin ma Iiraaniyiin ma kuwa kale ma dawlado kale rag kale ma jiraan meelo kale ma jiraan marka hal mar hadii marka la helay raadkii khalaas marka nimankii Iiraaniyiinta waxay yiraahdeen kuwa kalena anaga soo qabsanayna iska laaf kuwan horta ma helnaha waa Iiraaniyiintu nimanna xamaa koronto kaaga qabanayaan meel walba markaas af labadii qeylinaysa waxa qari kartaba male